أصحاب قارية سودو هذا سوق كريبتو سوي جدنا كلي حوا halkiis ma fadhiyo bitcoin oo 20 kun ilaa 30 kun soo taabatay waxaan isdhihi karnaa labada waxyaabood sababay mid ugu horeysa ah koonka Celsius oo asaga sameeyay arrin aad u farxun iyo inflation ka dhacay Mareykanka muddo 40 sano laga joogo hadartan oo markii ugu xumeed ay tahay in kor u kaca heerkaas uu sameeyo mid ugu horeysa dangan oo koonka Celsius waa platform aad u weyn oo dadka lacag u hayo sidoo kale waxa u dhiibanaysaa waxyaabaha ku shaqeeya ribada inaad lacagtaada inta u dhiibato stake uu kugu soo biyo sida Ethereum ama Bitcoin ama waxyaabaha kale oo lamidka ah den uu lacag uu markaas dad sii deemiyo dadka uu deemiyo oo lacag ka qaado kadibna lacagtaas adiga iyo asaga kala qaybsataan waxyaabahaas ku shaqeyn jiray koonkan Celsius markii ugu dambeysay wuxuu sameeyay yani inuu kacayo isagoo dhan oo lacagay Ethereum badan waxyaabaha Ethereum sababay in shalay hoos u dhacso waxaa kamid ah waxyaabahaas oo aan koonka Celsius oo suuqa kusoo daadiyay Ethereum badan oo dadkii lahaa staking-ka deeman ahaan iskaga soo celiyeen iyo dadka u dhiibtay oo asagana uu lacagay bixin waayay oo suuqii noqday in arrintaasi uu suuq wax badan kusoo daadiyo oo Bitcoin badan coinka dhan iyo platformka dhan ay kacaan hawada ka baxaan mid kale oo arrinta inflation-ka iyadana Mareykanka waxa waa markii ugu horeysay muddo 40 sano ah oo kor u kac u sameeyo waxyaabaha gaaska guryaha cuntooyinka waxyaabahaas oo dhan inay sameeyaan waxyaabaha hadda la filayo waxaa kamid ah maalinta Arbacada soo socota in interest rate kor loo qaado oo dadkii markii afraad laga dhigo in sanadkan gudihiisa kor loo qaadayo interest rate-ka oo lagu kordhiyo arrintaas oo aad u soo kartay in Bitcoin oo imaado meelahan iyo meelo ka sii furxan marka newska update-ka Arbacada way soo update gareyn doonaa insha Allah haduu la yiraahdo waxyaabo ku soo kordhay sida ugu jeedaan sawirada waxaa kacay ay shirkad adduunka ku taalay waxaa ku yimid inflation ama sicir barar waxaa hoos u dhacay qiimaha shirkadaha adduunka oo dhan waxyaabaha kriptada ku kaliya maaha waxa adduunka oo dhan ka wada jira waayo waxaa keenay saameyntii ugu weynayd shidaalka oo adduunka aad iyo aad arrintaas uga yaaban yahay ilaa hadda qab waxa laga leeyahay marka asxaabta insha Allah soo dhawaada marka waxbana ayaa lisleeyihiin crypto waa baabaaday crypto waa dhacday crypto weli waxay leedahay rajo balse suuqa ayaa sida iska dhacday